Okay, qaabka Onexbet aad ula bixeyso EFC Plus. Onexbet haysataa EFC Plus aad rabtaa toos ula bixeysaa ama Telesom ama Golis dhamaantood waa isku hal. Qaabkan wadadan la mareysaa ma fahantay? Okay, ugu horeyn halkan waxaad kasoo dooranaysaa lacagta aad soo diraysid. Halkan aad taabanaysaa meesha ugu horeyso currency, select currency. Kadib waxaad ku dhufanaysaa Onexbet haysataa Soomaa, Onexbet aad ku dhufaysaa. kadib meesha labaad ayaad dooranaysaa lacagta meesha lagu diraayo. EFC Plus hadii lagu diraayo, Golis hadii lagu diraayo, Telesom hadii lagu diraayo, waa aad meesha doorato EFC Plus aad dooranayna. Halkan waxaan ku qoraynaa lacagta inta la bixino. Tusaale $2 ayaa la bixi rabnaa. $2 ayaa hiraysaa. Kadib waxaan ku dhufanaynaa calaamada exchange ayaa ku dhufaysaa. Calaamada exchange ayaa ku dhufanaysaa. kadib halkan waxaan ku qoraysaa numberka lacagta lagu soo diraayo. saana ku qoraysaa tusaale leh waxaan numberka lacagta lagu soo diraayo ku qoraysaa. kadib waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay confirm exchange aad ku dhufaysaa. waa easy confirm exchange. hadana confirm exchange ku dhufaysaa oo kor. okay, streetka waa kana code soo leedahay. Onexbet kaada gelinaysaa marka streetka Somali Sarif qaabkaas code soo leedahay ay Onexbet ka imaanaysaa. $2 la bixi rabnaa. kadib halkaas ku dhufanaynaa withdraw ku sii dhufanaynaa lacagta Onexbet qaabka loola baxayo qof walba wuu garanayaa Soomaa. kadib Onexbet cash ku dhufaynaa. kadib halkan $2 ku qoraynaa $2. kadib meeshan Muqdisho Banaadir ku qoraysaa city caasimada waa Muqdisho Banaadir. halkan waxaan ku qoraysaa streetkaada maya streetka aad soo koob gareysa ku qoraysaa waa kaas Somali Sarif ku dhufaysaa. kadib confirm la leedahay. kadib kooda numberkaada u dhacay. kadib magaa koodka oo rumta lagu diro ku dhufatid. kadib waxaa leenahay confirm la leenahay. kadib okay la leenahay. kadib halkaas kore oo cancel qoran tahay gedkooda ku soo qormayo iska sug. waa sugaysaa halkaas refresh ah meeshana gedkooda ku soo qormaa waa la sugaa. kadib refresh meeshaas ku dhuftay. kadib waa ka meeshana ku soo qormayso gedkood kana qaadaysaa mudan. gedkood waa kaas oo ku dhufaysaa. okay, koodka gacanta saas ku riixaysaa. copy leedahay. sawirna waa ka qaadanaysaa. sawir saas ugu qaad. okay dheh. kadib website Somali Sarif imaaw. halkan koodka ayaa gelinaysaa. halkan sawirkii ka soo qaaday ayaad gelinaysaa. waa easy sida u maleynayo. qaabka sameeyno waa qaab fudeed ah si live ah u sameeyno waa. okay, screenshot ya galina. kadibna halkaas ku dhufeynaa mujada. kadib waxaa taabanayna exchange request ku dhufanayna exchange request. numberkii lacagta lagu soo diri lahaa koodka waa gelisay. waa kaas numberkii lacagta lagu soo diri lahaa wax dhan waa gelisay. kadibna daqiiqada kadib lacagtaada EFC Plus toos kugu imaanaysaa. waa intaas le waxaan rajeynayaa inaad fahantay. waqti inuu sii qaato marawa qaabka linkiga lacag ugu sameynaysa waa ka hadlay YouTube-keena ka raadi. intaas la sameynaysaa waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahantay eena fududahay qaabka loola baxo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.